istaahil waa cunug saqiir ah waxay jirtaa muddo ka yar 5 bilood sida hooyadeed noo sheegtay waxay ku nooshahay magaalada Buuhoodle cunugtan idin muuqata walaalayaal waxa la soo dirsay xanuun baahsan sida idin muuqata waxa aad u balaadhay madaxa isagoona marba marka ka dambaysa sii fidaya sida waalidkeed noo sheegay cunugtan yar ee saqiirka ah waxa hooyadeed noo sheegtay xilli aan ku booqnay hooyga ay ka degan yihiin qoyskeedu magaalada Buuhoodle inay dhibaato badan ka qabto isla markaana aysan seexan habeenkii kaaraad u badan oo ka haya madaxa dhinaca kale cunugtan ayaa balaad awgii waxa muuqanaya xididada maramaqaarka sare ee madaxa waxaana dildilaa xoogan laga dareemayaa gabi ahaanba qaybta sare ee madaxa cunugtani waxa la sheegay dhakhaatiir badan in loo geeyay balse waxay sheegeen in xaaladeeda aan gudaha waxba laga qaban karin qoyska ay ka soo jeedana ma haystaan dhaqaale ay meel ugu qaadaan waxayna xaaladeeda kula tacaalaan gudaha magaalada Buuhoodle haddaba walaalkayga muslimka ah ama walaasheeda muslimada ah ku eeg il jilicsan fadlan u gargaar oo u kaalmee cunugtan saqiirka ah kuna sadaqayso xoolahaaga iyo waxa aad u awoodo Ilaahay dartii wixii karaankaaga ah ugu hagaaji lambarka hooyadeed oo ah kan idin muuqda Cabdicasiis aadan jaamac magaalada Buuhoodle